shirkan jaraa'ida oo xafiiskiisa ku qabtay maamulaha canshuuraha bariga ee gobolka bari ee wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland mudane Cabdulqaadir Liibaan Cismaan ayaa uu ku shaaciyay inay wasaaradda maaliyadda gaar ahaan waaxda canshuuraha bariga ee gobolka bari ay bilaabayso qaadista canshuurta loo yaqaan payroll tax ee canshuurta shaqaalaha. maamulaha ayaa faray milkiilayaasha xarumaha ganacsiga waxbarashada iyo caafimaadka inay muddo 15 casho gudahood ku soo gudbiyaan liiska shaqaalaha uga shaqeeya xarumahooda si loogu bilaabo canshuurta shaqaalaha maadaama uu sheegay inay ku waajibtay. waxaan halkan isugu yeeray oo rabaa inaan ka soo jeediyo barnaamijkii canshuuraha bariga dadweynaha shacabka ah ee payroll taxation ka bixiya macaamiisha la canshuuraha bariga waxaan rabnaa inaan u sheegno inaan bilaabayno cashuurihii payrollka shaqaalaha payroll taxation-kii dawladdu waxay ku shaqeysaa cashuuro weyn haddaan cashuurta la bixinna wax inoo hagaagaya ma jiraan jidad inoo dhismi maayaan wadooyin inoo hagaagi maayaan amnina heli mayno waxaan ka codsanayaa madaxda shacabka sharafta leh marka koowaad iyo marka labaad iyo mar saddexaadba ka codsanayaa inay cashuurta bixiyaan dhammaan shirkadaha ganacsiga goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada bahda waxbarashada jaamacadaha iyo dugsiyada sare waxaan ka codsanaynaa in ay ku soo gudbiyaan liiska macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo jaamacadaha muddo 15 casho gudahood si loogu bilaabo payrollka lagu waajibay cashuurta ay payroll taxation-ka ahaa qof walba oo muwaadin ah ee reer Puntland ama gobolka bari ah ee mushahar qaata ee u shaqeeya shirkad ganacsi ka shaqeeya dukaan spare party ka shaqeeya dukaan kale ka shaqeeya garaash dhammaantood waxa laga rabaa payroll taxation-kii waxaan ka codsanaynaa marka in sida ugu dhaqsaha badan isu soo diiwaan geliyaan si looga qaado payroll taxation-kii waxaan kala ogeysiinaynaa bahda gaadiidka dadka gaadiidka leh inay dhammaan gaadiidkooda ay ku qortaan magacooda iyagu leeyihiin mulkigooga iska daayaan magacyadan ku qoran ee nin waayo hore ka iibsaday magaciisa ku qoran waxa dawladdu si dhaqso ah u bilaabi doontaa magac bedelkii baabuurta oo si dhaqso ah loo bilaabayo iyagana way iska soo xaadiraan xafiiska xirada gaadiidka ee hawlaha guud ee Fiisha Baraa halka waxa ugu diyaar saraakiishii canshuuraha bariga saraakiishii wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka dhammaan tulbataariyada iyo traafikadii dadka guryaha leh ee guryahooda u kireysan yihiin oo guryaha ganacsiga oo kirada laga jiro dadka guryaha waxbarashada uga kireysan yihiin hay-adaha uga kireysan yihiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay iska soo bixiyaan cashuurta kirada daaraha qolada weeshashka ah ee ka shaqeeya dekada iyagana waxaan ogeysiinaynaa u sheegaynaa in cashuurtii muddo 3 casho gudahooda khidmadii lagu lahayd ee dejinta alaabaha ay sida ugu dhaqsaha badan iyagana ku soo xirayaan. Cabdirasaaq Cabdalla Maxamed warbaahinta dawladda Puntland magaalada Boosaaso.